بسم الله الرحمن الرحيم waxaa active casharadii aan ku qaadanaynay English ka new concept buugaan ka qaadanaynay marka practice and progress barashada luqadda English to Somali marka waxaa inoo active casharadeenii aan ku qaadanaynay buugaas practice and progress marka hore aan sii soconaynaa marka casharkeena maanta ciwaanka ayaan qaadanaynaa waa kan ciwaankan ka qaadanaynaa breakfast or lunch ma quraacba mise waa qado breakfast quraac miya or ama lunch waa qado breakfast quraac or lunch ama qado marka it was Sunday ahad ayay ahayd marka I never get up early ma tooso ama ma kaco subaxdii hore on Sundays maalmaha ahada aniga sometimes mararka qaarkood stay waxaan sii ahaadaa in bed sariirta ayaan ahaadaa until ilaa iyo lunch time xilliga qadada last Sunday axadii dambe ugu dambeysay hadeer I get up waxaan toosa very late xilli dambe marka I look at waxaan fiiriya outside banaanka of window daaqada ayaan fiiriya ama aan halka ka qoraansaday it was waxay ahayd daag mugdi outside banaanka what a day baaneri maxay ahayd maanta what a day maxay ahayd marka gaalada waxay tiraahdaa maalmaha roobka daaya ama cadarka jiro ama waxda ayaan roobka badan waxay dhahaan waa maalin baas what a day bay ku leeyahay marka what a day waa maalin baasta I thought ayaan isiri marka I thought markaan ku leeyahay think way ka timidtan baastigeedii waa marka thought uu noqday I thought ayaan ku fikiray maana siri it is raining waa udaayay again markale just then inta kadib the telephone rang telefonka ayaa dhacayo it was waxay my aunt Lucy eedaday Lucy I have just arrived hada ayaan imi by train baan ku imi she said ayay igu tiri I am coming to see you waxaan rumaynaa idin arko ama aan ku arko but lakin I am having breakfast waxaan qaadanayaa quraacda I said ayaan nidhi what are you doing ayay igu tiri markale what are you doing maxaad samaynaysaa she asked ayay igu tiri I am having breakfast ayaan nidhi quraacdii ayaan qaadanayaa I repeat ayaan ku celiya aniga dear me ayay igu tiri gacaliye she said ayay igu tiri do you adiga always mar walba get up so late xilli dambe ayaa kacdaa it is 1 o'clock waa 7 ama waa halkii saaco duhurnimo marka key structure-ka oo casharkeena ugu muhiimsan ayaan baranaynaa key structure-ka ayaan ka soconaynaa halkaas ayaan qaadanaa key structure-ka muxuu yahay maanta aan aragno now ba ku qoran hadda maxaa dhacayo waxa hadda dhacayo baan arkaynaa marka now baan ku baranaynaa oo hadda key structure-ka markaas study baro this statement jumladahan and question is su'aalaha marka this sentence jumladahan are from the passage oo ku yaala passage-kan ama qidcadan ama page kan aan akhrinayno ayaan ku baranaynaa marka now kaliyaan baranaynaa it is raining waa u daayaa oo hadda ayuu daayaa I am coming to see you marka waxaan u iminaadeen arko ama inaan ku arko marka hadda ayaanba u imi weeye inaan I am still really having a breakfast weli quraacda ayaan qaadanay I am still really having waxaan qaadanaya breakfast quraacda marka often badanaa and always iyo marmar and always iyo marmar frequently waa la macno frequently waa la macne waxay iyadana noqonaysaa mararka qaarkood often waa mararka qaarkood always waa mar walba wax soo noqonay frequently waa la macno marka I aniga never get up ma toosin early on Sundays I aniga never get up ma tooso early on Sundays maalmaha axad subaxdooda hore I aniga marka sometimes stay sometimes mararka qaarkood stay waxaan sii ahaadaa in bed sariirta until ilaa iyo lunch time xilliga qadada marka do you always mar walba get up so late waxaa kacdaa waqti dambe do you always mar walba miyaad get up kacdaa so late xilli dambe marka he
he rarely waa la macne waxay la macna tahay often always frequent rarely marka waa marmar dhifa dhif iyo naadir waa he asiga rarely marmarka qaar marar dhifa gets up ayuu wuxuu toosaa before the 10 o'clock tobanka subaxnimo ka hor marmar dhifa ayuu toosaa tobanka subaxnimo ka hor marka we anaga frequently have lunch waxaan ka qadaynay waxaan frequently marmar have lunch qadana ka cunaa ama ka qaadanaa at this restaurant maqaaxidan we frequently mararka qaarkood anaga have lunch waxaan ka qadaynaa at this restaurant-gan ama maqaaxidan marka casharadeenisa ayay noogu sii socon doonaan sidaa darteed waa anigoo ah maxamed axmed bare waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka khiyaarta mar walba oo casharadan oo nadiif oo tafatiran ay u baahdaan waxay ka heli karaan lambarka direct number ayaan siinaa marka oo Soomaaliya ka ayaga la soo xiriiri doonaan sida darteed waa maxamed axmed bare idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu